habeenimo taariikhda ay ku beegneed 22 July 1991 booliiska waddanka Mareykanka ayaa baaritaan waxay ku sameeyeen apartment qolka lambarkiisu yahay 213 waxayna meesha ugu tageen meydadka dhalinyaro waagas la raadinayay lafahooda gacmahooda oo jarjaran xubnaha jirkooda sida wadnaha iyo kaliyaha iyo madaxyo isdul saaran oo ku jira fridge-ka. Milwaukee police find a horrifying scene inside an apartment building. Police got here in the middle of the night and what they found was an apartment full of pieces of people. isla markiiba waxaa banaanka imaaday oo la ogaaday nolosha qarsoodiga ah ee uu ku nool yahay wiilka dhalinyarada ah Jeffrey Dahmer dilaaga dadcunka ah. magaciigu waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada muuqaalkeenan waxa uu ku saabsan yahay dilaagii dadcunka ahaa ee hurdada u diiday Mareykanka sanadyadii intii u dhaxaysay 1978 ilaa 1991. Jeffrey Dahmer waxa uu gacantiisa ku dilay oo hilibkooda cunay dhiigoodana cabay 17 wiil oo dhalinyaro ah oo iskugu jiro dadka madowga ah ee waddankaas u soo haajiray iyo dadka Eeshiyaanka ah. haddaba ninkan dilaaga ah qisadiisa waxay ka soo bilaabatay gobol ku yaala waddanka Mareykanka wuxuu dhashay 21 May 1960. aabihii wuxuu ahaa saynisyahan aad u xiiseeya biology-ga hooyadiina waxay ahayd xaafad joog laakiin mar walba waxaa ziyaadi jiray isku dhaca hooyadii iyo aabihii ayagoo isku qaylin jiray. hooyadiisna waxay bilowday inay isticmaasho daroogada ma uusan helin barbaarin iyo jacayl waalidnimo isku dhaca labadiisa waalid ayaa mar walba sii xoogeysanayay. aabihii subax ayuu shaqada aadi jiray hooyadiina daroogo ayay cuni jirtay isagana dhexda ayuu ka baxay asagoo aad u yar oo 5 jir ah ayuu bilaabay inuu wax dilo wuxuuna ku bilaabay cayayaanka yaryar kadib wuxuu u gudbay inuu dilo jiirka iyo bisadaha isagoo kala jeexayo kana soo dhex bixinaya wadnaha iyo caloosha. aabihii markuu la joogo ayuu weydiin jiray su'aalo ku saabsan marka ay dadka ama xoolaha dhintaan maxaa ku dhacaya jirkooda seesan noqonayaan maadaama aabihii uu saynisyahan ahaa uu u sheegi jiray. waqtigiisa iskuulkan wuxuu aad u jeclaa maadada sayniska maadaama ay ka hadlayso xubnaha bini'aadamka iyo waxyaabo la halmaalo. 10 jirkiisana wuxuu bilaabay inuu dilo xoolaha ama xayawaanka sida eeyaha laakiin mar walba oo uu wax dilo wuxuu sameynay intuu kala jeexo ayuu ka soo dhex bixinaya wadnaha iyo kaliyaha. Dahmer markii la qabtay kadib interview uu bixiyay wuxuu ku sheegay inuu jeclaa inuu wax ka ogaado kala duwanaanshaha u dhaxeeyo xayawaanka iyo bini'aadamka kadib wuxuu bilaabay dhadhaminta iyo cunitaanka hilibka xayawaanka uu dilo asagoo ku cunayo ceeriin wuxuuna isweydiin jiray su'aalo ah maxay ku kala duwan yihiin bini'aadamka iyo xayawaanka hilibkooda. And I just started branching out dogs, cats. More and more, Dahmer killed animals in the woods behind his house. And it switched from animals to humans. sanadii 1977 labadiisa waalid waxay go'aansadeen inay kala tagaan meeshaasna waxaa ku dhacay furniinkooda laakiin Jeffrey Dahmer waxa uu la noolaa hooyadii aabihina markaas guriga ayuu ka tagay 18 June 1978 ayay wax walba isbedeleen isagoo 18 jir ah ayuu geystay dilkiisa ugu horeeyay oo u geystay qof bini'aadam ah kadib 3 asbuuc oo uu ka qalin jabiyay high schoolka. wiilka dhalinyarada ah oo uu dilay waxaa lagu magacaabaa Stephen Mark da'diisana waxay ahayd 17 jir xaafadiisa ayuu ku casuumay cabitaan ayayna wada cabeen. Stephen wuxuu go'aansaday inuu tago maadaama uu meel ka degdeg laakiin Jeffrey waa uu ka diiday wuxuu soo qaatay birta jiimka lagu sameeyay ee culeyskeeda uu ahaa 5 kilogram madaxa ayuu kaga dhuftay madaxa ayuuna kaga qaraacay ilaa uu ka dhimanayay Stephen. kadib markuu dhintay wadnihiisa ayuu kala jeexay wadnaha ayuu ka soo bixiyay hilibkiisa iyo lafihiisa intuu jajaray ayuu jawaan ku soo riday wuxuuna ku aasay gurigooda meel u dhow oo banaanka ah. dilkaas uu geystana waxay ahayd dilkii ugu horeeyay oo uu geystay qof bini'aadam ah. Dahmer wuxuu bilaabay inuu cabo khamriga oo cabtooy ayuu noqday maadaama uusan ahayn wax shaqo ah iskuulkiina uu dhameeyay. labadiisa waalidna way kala tageen hooyadii meel ayuu gurtay aabihina xaas kale ayuu guursaday kaligiis ayaa meel cidla ah soo istaagay. aabihii ayaa wuxuu go'aansaday inuu wiilkiisa college geeyo laakiin college-yada waa ay diideen maadaama iskuulka uu kaga qalin jabiyay grade aad u hooseeyo. kadib aabihii wuxuu go'aansaday in wiilkiisa uu ku daro ciidanka waxaana la geeyay xero tababar ciidan. dhowr bilood oo meesha uu joogo waa laga soo ceeriyay sababta meesha looga soo ceeriyayna waxay ahayd asagoo mar walba khamriga aad u cabi jiray. sanadana waxay ahayd 1981 laakiin Jeffrey Dahmer mar walba waxaa ka walwali jiray aabihiis sababtoo ah wuxuu ahaa wiilka kaliya uu ka haysta dunida. intuu soo kaxeeyay ayuu u keenay ayeeyadii oo markaas deganeed guri weyn oo ku yaala magaalada wuxuuna u sheegay inuu ka taxadaro ayeeyadiis maadaama meesha ay ku nooleed kaligeed shaqana u raadsado si naftiisa u dabaro. Jeffrey Dahmer wuxuu isku dayay in noloshiisa wax ka bedelo shaqo ayuu helay laakiin mushaarka uu shaqada ka soo qaato meel kale ugama isan bixinin maadaama guriga uu degan yahay aan ijaar laga rabin oo ayeeyadii ay leedahay. lacagtaasna wuxuu ku bixin jiray khamri iyo in kalaab uu ku aado shaqo walba uu aado waa laga soo ceerin jiray sababtoo ah mar walba wuxuu ahaa ninkan in khamriga aad u cabo. ugu dambeyntiina wuxuu helay shaqo kale shaqadaas oo ahayd meel farmashi ah ama isbitaal ah oo dadka dhiigga laga qaadayo. Jeffrey wuxuu u sameyn jiray dhiigga dadka laga qaado qayb ayuu bac ku soo shubin jiray xaafadda markuu imaadana oo cabi jiray. sidoo kale Jeffrey Dahmer wuxuu ahaa khaniis ama gay intuu taga meelaha khaniisiinta iskugu imaadaan
imaada ayuu soo kaxaysan jiray wiil dhalinyaro ah asagoo ugu sheekeynay inuu lacag siinayo xaafadda ayeeyadii ayuu keeni jiray meesha ayay cabitaanka wada cabi jireen cabitaanka ayuuna ugu shubi jiray daroogo si qofkaas miyirkiisa uu u tago kadib wuxuu bilaabi jiray inuu dilo hilibkoodana jarjaro guriga ayeeyadiisna wuxuu ku dilay dhowr qof qaybta hoose ee basementiga ayuuna u kaxayn jiray dadka markuu dilayo maamada ayeeyadiis ayaa shakisay oo tiri waa maxay waxa soo shiirayo asagana waxa uu ku qancin jiray ama ugu sheekayn jiray dariska ayaa wax karsanayo ama waxaa laga yaabaa neef bakti ah inuu meelaha ku dhintay muuqaalkiisa marka la arko lama moodayo nin dilaa ah ama nin laga cabsanayo wuxuu u egyahay nin dhalinyaro maskiin ah oo kiyaalo ay iska wataa labiskiisa waa labis iska caadi ah si degan ayuuna u hadlayaa dhalinyarada khaniisiinta ahna wuxuu kusoo jiidan jiray asagoo kula hadlaya hadal dabacsan sidoo kalena u sheegayo inuu lacag siinayo ugu dambeyntii Jeffrey Dahmer waxaa ka cabatay ayeeyadiis waxayna ugu yeertay aabihii iyadoo sheegtay in habeenkii uu soo daahayo waqti dambana imaanayo shaqadiina laga soo ceeriyay oo shaqadii uu ka tagay Jeffrey Dahmer waxa isku dhaceen aabihiis magaalada ay iskaga soo tagay wuxuuna degay apartment ay u badan yihiin dadka balaaga ah apartmentigaasna kaligiis ayaa ka ahaa qof cadaan ah oo xaafadaba waxay ahayd xaafad ay ku badan yihiin dadka balaaga ah qolka uu degan yahay oo lambarkiisa uu ahaa 213 qolka ku dhegan waxaa deganeed maamo madow ah Jeffrey Dahmer wuxuu dareemay xorriyad maadaama qolkan uu kaliya degan yahay wuxuu u arkay fursad uu ka faa'iideysan karo hawshiisa ayuuna bilaabay intuu dadka banaanka ka keensado qolkiisa uu keeno cabitaanka uu biyaha ugu daro meeshan uu ku dilo hilibkoodana uu cuno qaybna uu fridge-ka gashto maamada madow ee dariska la ahayd ayaa shakisay maadaama shiir badan oo ka soo baxayo qolka ku dhegan ee Jeffrey Dahmer habeenkii markii ay sii seexanaysana waxay maqli jirtay wax la qaraacayo iyo qeelo markii lafaha uu jijibinayo wuxuu isticmaali jiray baangad booliska ayaa wacday waxayna u sheegtay qolka ku dhegan inay ka shakisan tahay oo baaritaan lagu sameeyo laakiin boolisku ay ka cagajiideen ma aysan imaan habeenada ka mid ah ayuu Jeffrey Dahmer waxa uu soo kaxaystay wiil dhalinyaro ah oo da'diisa aad ay u yar tahay oo markaas jiray 14 sano wiilkan wuxuu asal ahaan ka soo jooday dadka indha yarta ah qoyskoodana markaas ayay soo galeen Mareykanka gurigiisa ayuu keensaday cabitaanka ayuu biyo ugu daray wiilka waa marqaamay Jeffrey Dahmer banaanka ayuu u soo baxay si uu wax u soo gato laakiin wiilka asagoo dabaqsan oo qaawan ayuu banaanka u soo baxay oo isla meeshan ka baxso waxaana banaanka kula kulantay maamadii balaaga ahayd oo deganeed qolka Jeffrey Dahmer ku dhegan boolis ayay u wacday laba nin oo boolis oo cadaan ayaa meesha imaaday wiilka su'aalo ayaa la weydiinayaa ma hadlayo sababta uu dabaqsan yahay oo darooga ayaa cabitaanka loogu daray isla markiiba booliska ayagoo meesha taagan waxaa imaaday Jeffrey Dahmer wuxuuna booliska ku qanciyay inuu wiilkan yahay saaxiibkiis ama uu kala dhaxeeyo jacayl maadaama uu ahaa khaniis wuxuuna sheegay inuu aad u cabay oo uusan hadli karin laakiin waxaa ka diiday maamadii madowga ahayd oo sheegtay in wiilkan da'diisa aad u yar tahay laakiin booliska waxay qaateen hadalka Jeffrey Dahmer wiilka ayuu soo xambaaray qolkiisa ayuu keensaday isla markii ay booliska tageen wuxuu bilaabay inuu wiilka dilo baangad ayuu soo qaatay hilibkiisa ayuu jarjaray madaxana uu ka gooyay madaxii fridge-ka ayuu gashtay hilibkina qayb ayuu cunay maamadii madowga ahaydna intaas kuma isan ekaan oo shakiga ay ka qabta ninkan aad ayuu u sii ziyaadayay isla markiina booliska ayay wacday waxayna isku dayday inay ku qanciso mar kale in wiilka da'diisa aad u yaray laakiin booliska ayagoo ku jeesjeesay ayaa lambarka ku damiyeen boyfriend of another boyfriend. How old was this child? He wasn't a child, he was an adult. After the police left, Jeffrey Dahmer murdered that boy. ugu dambeyntii dilaagan sirkiisa waxaa ka shafi doona wiil dhalinyaro ah oo madow ah wiilkan ayay ku kulmeen banaanka waxayna ku heshiiyeen in xaafadda ay soo aadaan ay waqti wada qaataan markay qolka soo galeen ayuu cabitaanka wax ugu daray cabitaanka markuu wiilka saa u qabtay wuxuu arkay cabitaanka midabkooda isbedelayo kadib uu ka shakiyay meel ayuuna iska dhigay Jeffrey Dahmer wuxuu mooday in wiilka uu cabitaanka cabay waxa uu sugayay waqtiga uu ka dabaqmayo ama miyirka uu ka tagayo si uu hilibkiisa u cuno meesha ayay labadooda ku dagaalameen waxay xarbiyaan wiilka waxa u suurta gashay in guriga uu ka soo baxsado banaanka ayuu imaado asagoo ku qaylinayo caawiya meeshina boolis ayaa imaaday waxaana baaritaan lagu sameeyay qolka Jeffrey Dahmer uu deganaa waxaana laga soo bixiyay hilib bini'aadan lafo jajaban iyo madaxyo go'an oo ku jira fridge-ka isla markiiba meesha ayaa lagu katinadeeyay xabsiga ayaana la geeyay sanadan waxay ahayd 1991 TV-yada caalamka newska meel walba waxa laga hadalhayay dilaagan dadcunka ah laakiin maamadii madowga ahayd ee deganeed qolka ku dhegan Jeffrey Dahmer ayaa waxay sheegtay in booliska mar walba ay wargelin jirta ninkan ayna ka shakisaneed laakiin booliska hadalkeeda aysan waxba ka soo qaadin labada nin ee booliska ahaa ee maamada hadalkeeda ku jeesjeesana shaqada ayaa laga fariisiyay Jeffrey Dahmer waxaa lagu xukumay xabsi daa'im maadaama dilaagan dadka uu dilay ay u badnaayeen dad madow ah inta aan la dilin ka horna wuxuu bixiyay waraysiyo aad u dhaadheer oo kaga sheekeynaya noloshiisa iyo waxyaabaha ku qasbi jiray in dadka uu dilo haddaba maxaa isku soo aadiyay qisadan dhacday 8-maadka in maanta la hadal hayo shirkadda Netflix oo sameeysa filimada ayaa soo saartay filim taxane ah oo ay kaga sheekeynayaan ninkan qisadiisa filimkaas taxanaha dadka wuxuu xasuusiyay dilaagan Jeffrey Dahmer si dadka looga digo inay macquul tahay inay jiraan dad sida Jeffrey Dahmer kale u nool dadkana jecel in hilibkooda ay cunaan muuqaalkan intaas ayuu noogu egyahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhaw muuqaalka like saar si dad badan u sii gaaro waqtigaagana waad ku mahadsan tahay